السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب بالح كسر باتان برنامج كادو سويسين وها برنامجكي nolosha ciyaaryahanka Pierre Emerick Aubameyang waxaa barnaamij soo jeedin doona aniga Nuur Aadan Shaqra. halkan ay daawaneysaan waa YouTube-ka Arsenal FC Somali Fans iyo Facebook-geena marka la soo dhawaada barnaamijka ku gal doona Ramadaan Kariim. Pierre Emerick Emiliano Francos Aubameyang waxa uu dhashay 18 Juun 1989 waxa uu ku dhashay magaalada Faransiiska ee Laval. Aabiis waxa lagu magacaabi jiray Pierre Aubameyang halka uu lagu magacaabo Margarita Aubameyang. marka laga soo tago kubadda cagta, Pierre Emerick Aubameyang waa aabbe haysta laba carruur ah. waxaa lagu kala magacaabaa Cartiers iyo Pierre. Aubameyang waxay walaalihiin Catalina iyo Wele oo labaduba u soo ciyaaray kooxda dhalinyarada ah ee AC Milan. isagu waa uu luuqado badan yahay, waxaana ku hadlaa luuqadaha Faransiiska, Ingiriiska, Isbaanishka, Talyaaniga iyo Jarmalka. Aubameyang aabihiisa waxaa lagu magacaabaa Pierre Aubameyang, ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Gabon, waxaana indheeye u soo noqday kooxda AC Milan. Aubameyang hooyadiisa waxay ku rartay dalka Isbaanishka, gaar ahaan dalbeedka caasimadda ee Madrid. Aubameyang labadiisa walaal waxay waqtigooda badan ku qaadan jireen ciyaarista kubadda cagta ayagoo ku ciyaari jiray wadooyinka, waxaana go'aankooda ahaa inay noqdaan xirfadlayaal sare ee kubadda cagta. Aubameyang wuxuu caruurnimadiisii ugu badneed ku qaatay magaalada Milano, halkaas uu aabihiisa ugu shaqayn jiray inaanta kubadda cagta. tani waxay sii kicisay xiisaha Pierre ee ciyaarista, waxaana ku biiray akademiyada dhalinyarada ee Milano. ugu dambeyntii 2007 waxa uu helay fursadii ugu horeysay oo ku biiro kooxda dhalinyarada ah ee Milan si uu u helo khibrad dheeri ah. Pierre waxa uu ku biiray kooxda Dijon ee ka ciyaarta dalka Faransiiska. markii uu jiray 18 sano wuxuu noqday mid kamid ah gooldhaliyaasha hogaaminaya kooxdiisa, waxaana sidoo kale amaah lagu siiyay Lille iyo Monaco. waxaa loo saxay heshiiskii ugu weynaa xirfadiisa. bishii December 2011 Saint-Etienne ayaa ka sixatay heshiis joogto ah. bishii February 2012 Pierre wuxuu cadeeyay in uu mudan yahay, isagoo 3 liig ka dhaliyay kooxda ka soo horjeeda ee Lorient. waxa uu ahaa dhaliyaha ugu sareeya kooxda, isagoo dhaliyay 16 gool, waxaana dhaliyay kala bar goolasha ay dhalisay kooxdiisa. wuxuuna sanadkaas sameeyay 18 gool iyo 7 caawin. marka laga soo tago kubadda cagta, Pierre waa orodyahan, waxaanu haystaa rikoor ah inuu orday 30 mitir 3.7 daqiiqo gudahooda, taasoo la sheegayo in xitaa ay ka fiican tahay ninka adduunka ugu xawaaraha badan ee Usain Bolt. dhanka kale, orodyahanka reer Jarmal ee Junior Royce ayaa Pierre Emerick Aubameyang ka codsaday in ay mar wada tartamaan, laakiin Pierre Emerick Aubameyang ayaa qabalin ay leeyahay loolankaasi. intaas ayaa kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena nolosha ciyaaryahanka, maadaama ay taariikhdiisa in halkan lagu soo koobi karin. waxaan kasoo qaadanay inta ugu muhiimsanayd ee barnaamijka. waxaan kulmi doona waa aniga Shaqra, waxay tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Ramadaan Kariim.